wadahadallada lagu joojinayo dagaalka u dhaxeeya Mareykanka, Israa'iil oo dhinac ah iyo Iiraan ee ka socda gobolka Bariga Dhexe ayaa u muuqday inay god ku sii dhacayaan iyada oo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu sheegay in Iiraan uu la yeeshay wadahadallo dhowr ah ha yeeshee inkastoo saraakiisha sarsare ee Iiraan ay beeniyeen. daawadayaal waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa xogihii ugu dambeeyay ee ku aadan dagaalka Bariga Dhexe ee 20 iyo dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay si weyn halkaasi kaga soconayay kaasi oo si weyn u saameeyay dhaqaalaha guud ee adduunka. ku soo dhawaada daawadayaal tabinteena koobaad halkan waa nabad aniguna waxaan ahay Xuseen Xasan. aynu ku bilaawna telefishinka Israa'iil laga leeyahay ee lagu magacaabo Janaal 12 ayaa xalay waxa uu baahiyay 15 qodob oo Mareykanku miiska soo saaray si loo joojiyo dagaalka ay kula jiraan Iiraan weli kama jawaabin ha yeeshee 15 kaasi qodob ee Mareykanka ka soo baxay ayaa u muuqda kuwa aad u adag marka loo eego dhinaca Iiraan iyo inay aqbasho. qodobka koobaad ee Mareykanku uu miiska soo saaray si loo joojiyo dagaalka ama loo bilaabo wada hadal waxa kowka ah in la burburiyo awoodaha nukliyeer ee Iiraan leedahay hadda, in laga mamnuuco Iiraan inay hormariso ama ay hodmiso uraniumkeeda guud ahaan ama gudaha dhulkeeda inay ku hormariso kaasi oo aha ubuucda khilaafka uu dagaalku ku bilowday, in la xiro lana burburiyo xarumaha nukliyeerka ee Natanz, Isfahan iyo Fordow oo uu dhowr jeer oo hore Mareykanku duulaan dhinaca cirka ah ku qaaday. Mareykanka ayaa markii uu socday dagaalkii Israa'iil iyo Iiraan ee dhacay bartamihii sanadkii tagay ee 2025 intii uu dagaalku dhamaan Mareykanku waxa uu qaaday duulaan dhinaca cirka ah oo uu ku beegsaday xarumahan oo ay ugu horeyso Isfahan iyo Fordow. Iiraan xilligaas waxa ay sheegtay inaan wax khasaare ah soo gaarin. 28 bishii tagtay ee Febraayo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeya Israa'iil iyo Mareykanka oo dhinaca iyo Iiraan, Mareykanka ayaa dhowr jeer oo hore waxa uu weeraray xarumahan ha yeeshee hay'adda atomikada adduunka ayaa sheegtay inaanu ka dhalan wax shucaac ah. qodobka kale ee Mareykanku uu soo saaray waxa oo dagaalka lagu joojinayo waa in la joojiyo maalgelinta ama Iiraan ay joojiso maalgelinta iyo hubeynta ay ku hayso kooxaha ay sida weyn u taageerto Iiraan ee ka dagaalama gobolka. kooxahaasi waxa ugu horeeya kooxda Xisbullah ee ka howlgasho Lubnaan taasi oo haddaba ku jirta dagaalka oo Israa'iil ka weeraraysa dhinaca waqooyiga oo ah Lubnaan. qodobka kale ee xiga waa in gantaalada ay Iiraan haysato loo isticmaalo hab difaac. qodobkaasi oo ka dhigan in laga yaabo inuu qodobkaasi ka dhigan yahay in Iiraan loo ogolaado in gantaalada gaari kara wixii ka yar 1 kilomitir ay kaliya haysato inta kalena ay u muuqato marka qodobkan loo eego in la burburiyo. qodobada kale ee ku jira waxaa ka mid ah in la qaado cunaqabataynta hore loo saaray Iiraan tan iyo 1979 markii Iiraan ay la wareegeen nidaamka kacaanka ay wadaadadu horkacayaan waxa la saaray cunaqabatayno dhaqaale kaasi oo in badan naafeeyay dhaqaalaha Iiraan ma jiro hadda maraakiib dagaal oo casri ah oo ay iibsatay tan iyo xilligaas iyo diyaarado dagaal ha yeeshee Iiraan waxa ay si weyn u horumarisay barnaamijyadeeda gantaalaha oo ah tan ilaa iyo maanta ay kula loolamayso Israa'iil iyo weliba Mareykanka oo ay dagaalo kula jirto. dhinaca kalena qodobka ugu dambeeyana waxa uu yahay in la joojiyo hanjabaadaha mar kale la joojiyo hanjabaadaha ku aadan in Iiraan mar kale la saaro cunaqabatayn. Iiraan si toos uguma jawaabin qodobada uu Mareykanku soo saaray oo u muuqda in Iiraan ku noqon karo jab dheeraad ah maadaama Iiraan hore loogu dilay hogaamiyaheedii sare iyo weliba taliyaal ciidan oo sarsare. dhinaca Iiraan warbixin uu daawacay wargeyska Wall Street Journal ayaa shaaciyay qodobada culus ee Iiraan miiska soo saartay si loo galo ama loo joojiyo dagaalka. Iiraan ayaa iyadoo dhankeedu waxa ay soo saartay qodobo ka adag kuwa uu Mareykanku soo saaray. qodobka ugu horeeyana waxa uu yahay in si degdeg ah loo xiro dhammaan saldhigyada Mareykanka ee khaliijka ku yaala iyo weliba kuwa Bariga Dhexe guud ahaan, taasi oo ka dhigan arrin aad iyo aad u adag in la aqbalo waa dhinaca Mareykanka. qodobka labaadna waxa uu yahay in la bixiyo damaanad qaad amni oo rasmi ah oo sharci ah oo ka hortagaya weeraro dambe oo lagu soo qaado Iiraan. sanadkii tagay bartamihiisii 2025 duulaan ay Israa'iil si degdeg ah u qaaday Iiraan ayaa sababay in la dilo saraakiil dhowr ah oo ka tirsan Iiraan. arrintaasina waxa ay sababtay in Iiraan mar kale aysan aaminin oo wada hadalladii ugu dambeeyay ee ka hor 28 Febraayo inta uusan dagaalku bilaaban Iiraan waxa ay wada hadallo kula jirtay Mareykanka iyo Israa'iil ee ku aadan barnaamijyadeeda gantaalada iyo weliba nukliyeerka.
hayeeshee Iiraan ayaa sheegtay in aan la aamini karin Mareykanka iyo xulafadiisa Israa'iil oo dhowr jeer iyadoo oo ay wada hadal socdaan soo weeraray Iiraan taasi oo Iiraan gaarsiisay khasaare weyn. dhinaca kale Iiraan qodobka kale ay miiska soo saartay waa in la joojiyo weerarada Israa'iil ku hayso koonfurta Lubnaan ee gaar ahaan Xisbullah. Israa'iil ayaa haatan oo uu socdo dagaalka Iiraan kula jirto waxaa jira in duulaan dhinaca dhulka ah iyo waliba cirka ay ku qaaday koonfurta Lubnaan. maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay muuqaalo muujinaya in Israa'iil ay burburinayso buundooyinka webiga aagaasi ku yaala isla markaana waxaa la sheegay in damaca Israa'iil uu yahay inay la wareegto koonfurta Lubnaan oo ay doonayso in dhulka ay xoog ku haysato ay ku soo darto. qodobada kale ee Iiraan miiska soo saartay si loo joojiyo dagaalka waa in Mareykanku uu bixiyo magdhow oo ah khasaarihii dagaalka ka soo gaaray Iiraan, in aan wax shuruudo ah lagu soo rogin barnaamijka gantaalada Iiraan oo ah nidaamka ugu horumarsan ee ay hadda Iiraan haysato. qodobada ugu waaweyn ee Iiraan ku gorgortamaysana waa marinka Hormuz. Iiraan waxay sidoo kale jeedisay in la abuuro nidaam cusub oo u ogolaanaya inay lacag ka qaado maraakiibta mara marinka Hormuz iyo waliba Suez ee Masar. qodobada ay labada dhinac miiska soo saareen ayaa u muuqda in ay ceel dheer ku sii dhacayso wada hadallo kasta ama qaab kasta oo lagu joojin karo dagaalka muddada dheer dagaalka ku dhawaad bil ku dhow sii galaya ee ka socda gobolka Bariga Dhexe kaasi oo si weyn u saameeyay guud ahaan amniga iyo dhaqaalaha caalamka. dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa soo saartay tan iyo markii uu bilowday ama ay Israa'iil si rasmi ah dagaalka ugu qaaday Lubnaan tirada dadka ee halkaasi ku dhintay. wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in tan iyo labadii bishii Maaj ay ku dhinteen ugu yaraan 1,072 qof halka 2,966 qof kalena ay ku dhaawacmeen kadib weeraradii cuslaa ee Israa'iil ay sida aan kala sooc lahayn ay ugu qaaday magaalooyinka Lubnaan iyada oo la sheegay in Israa'iil beegsanayso ururka Xisbullah oo xulafo la ah Iiraan kaasi oo qayb ka ah dagaalka Iiraan lagu hayo. tirada khasaaraha ayaa muujinaya heerka uu gaarsiisan yahay dagaalka iyada oo ay weli sii socdaan duqeymaha xagga cirka ah oo ay Israa'iil ka geysanayso dhulka Lubnaan. dhanka kalena taliyaha guud ee ciidanka Faransiiska ayaa Mareykanka ku tilmaamay xulafo aan la isku haleyn karin oo sidoo kale aan la saadaalin karin tallaabooyinka ay qaadayaan isagoo ku dhaleeceeyay in Mareykanka uusan ku wargelin xulafadiisa Yurub markii uu go'aansaday in uu ku lug yeesho duulaanka ay Israa'iil ku qaaday Iiraan. hadalladan waxaa loo fahmi karaa fariin toos ah oo loo dirayo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio oo toddobaadkan booqasho ku tagaya Faransiiska si uu isugu dayo inuu xulafadiisa Yurub ku qanciyo in ay ku soo biiraan dagaalka socda. arrintan ayaa u muuqanaysa in Yurub ka gaagaabsanayso ama ay ka warwareegayso inay dagaalka si rasmi ah ugu biirto iyada oo aan ogeyn ujeedada rasmiga ah ee loo galay dagaalka taasi oo ah sababta ama ubuucda khilaafka Mareykanka kala dhaxeeyo xulafadiisa NATO ayaa si rasmi ah u diiday inay ku lug yeelato dagaalka Bariga Dhexe ee lagu hayo Iiraan iyagoo sheegtay in dagaalkaasi ujeedada loo galay aysan cadayn mid looga baxayna aysan cadayn. ugu dambeyn ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed oo la hadlayay warbaahinta ayaa shalay su'aal la weydiiyay oo ahayd in dalkiisu fargelin ku hayo dalalka gobolka waxa uu ku jawaabay in aysan jirin fargelin uu ku hayo dalalka dariska la ah. Abiy Ahmed ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed oo ah dalka labaad ee ugu tirada badan ay ku nool yihiin Itoobiya ayna ixtiraam u hayaan isla markaana aysan wax fargelin ah ku hayn Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa diiday in xukunkiisu fargelin ku hayo arrimaha gudaha Soomaaliya. waxa uu sheegay in Soomaaliya kala shaqeeyaan arrimaha amniga iyo waliba iskaashiga isagoo sheegay inaysan jirin dhinac Soomaaliyeed oo ay la safan yihiin ama ay ka soo horjeedaan isagoo sheegay in dawladda dhexe ee Soomaaliya ay si toos ah ula shaqeeyaan. taa la mid ah waxa uu sheegay Abiy Ahmed in Eritrea ay sidaas la mid ah ula dhaqmaan. guud ahaan saaxiibayaal tabinteeni koowaad ee maanta aad kala socoteen nabad waanaga intaa haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir haddii aad nala joogtayna like noo saar mahadsanid.